waxaa soo badanaya dhallinyarada ka soo baxsanaysa xarumaha tababarka ee ciidamada Soomaalida ee lagu tababarayay dalka Eritrea tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2019 tobankii bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii maamul goboleedka Puntland uu soo bandhigay 5 dhalinyaro ah oo ka soo baxsatay Eritrea. galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray 3 dhalinyaro ah oo 2 jeer oo kala duwan ka soo baxsatay xeryahaasi toddobaadyadii u dambeeyay. dhalinyaradan ayaa sidoo kale galka baarista u sheegay inay jiraan kuwa kale oo ku soo daba jira oo iyaguna ka soo baxsaday xeryahaasi Eritrea. 2 ka mid ah dhalinyarada uu la hadlay galka baaristu waxay soo gaareen Soomaaliya 28 bishii Juun ee aynu soo dhaafnay. midka kalena waxa uu soo gaaray 1 bishii Juulaay waxaana la kala socday 12 qof oo kale oo iyaguna ka soo baxsaday xeryahaasi. dhalinyarada soo baxsatay waxay xilligaasi sheegeen tacadiyo loo geystay iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen xeryaha tababarka iyo in la marin habaabiyay marka ay noqoto meesha lagu soo tababarayo oo ay sheegeen in loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar. xubno kale oo dhawaan ka soo baxsaday xeryahaasi tababarkana waxay galka baarista u sheegeen iyaguna in loo sheegay in lagu soo tababarayo dalka Turkiga. maxamed faarax waxa uu ka mid yahay askarta Soomaalida ee ugu dambeysay ee ka soo baxsata xeryaha tababarka ee Eritrea. waxaan casmaro ka degnay goor makhribkiya. may idiin sheegeen inteedinaan dhoofin dalka u socotaan iyo waxaad ugu socotaan? may wax naloo sheegay ma jiraan. annaga inaan Qatar aan u socono baanu aaminsanayn oo dadka dhan ka dhaadhacsanayn. marka goormaad ogaatay inaad asmaro tagteen Eritrea? waxaan ogaanay diyaaradii marka ay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Airport. sarkaal ka soo baxay Eritrea oo yimid Soomaaliya Juulaay 1 waxa uu ii sheegay in ciidankii ugu dambeeyay ee la geeyay Eritrea sida uu isagu aaminsan yahay ay ahaayeen 2767 askari kuwaasi oo daadgurayntooda Eritrea laga bilaabay magaalada Muqdisho 13 bishii Juun ee sanadkii hore. waxa uu ii sheegay inay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee la geeyay dalka Eritrea mar qura. 3 xeree lagu tababarayay waxay ku kala magacaabeen Bahabari oo ku taala gobolka Gargara oo 40 kiiloomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Asmara isla markaana lagu xareeyo askarta ugu horeysa xilliga ay ku jiraan Dibooga. waxay sheegeen in xerada labaad ee markaasi la geeyay ay tahay xerada loogu tababaro kumaandoosta oo lagu magacaabo Weeco iyadoo xerada ugu dambaysa ee tababarka ku dhameystaana ay tahay Raas Xamaas oo u dhow magaalada Musawac taasi oo ay sheegeen inay tahay xero ay leeyihiin ciidamada badda. maxamed faarax ayaan weydiiyey sida ugu suurto gashay inuu ka soo baxsado xeryahaasi tababarka Eritrea. anigu waxaan ka soo baxay bishii 6 oo hadda la soo dhaafay 9keedii goor habeenimo baan ka soo baxay. ma lug baad ku soo baxday? lug baan ku soo baxnay. waxaan lugta ku soo galnay Ethiopia. waxaan la weynanay 6 beri. maalintii 6aad baan nimid magaalo xuduudka ku taala oo dhan Eritrea dhan Ethiopia. magaalada waxa la yiraahdaa badda waa dhanka Cafarta. meel baanu tagnay ka quraacnay meeshana ka quraacnana yaa noo yimid Soomaaliya tiinha niyo wuxuu yiri in hore oo halkaan dhalinyaro kale hore in ka soo risaxay baan inii geenaya oo meeshaan in ka diraya. dhalinyaradan ka soo baxsanaysa xeryaha tababarka Eritrea waxay ka sinaayeen dhibaatooyin la mid ah kuwa ay sheegeen askartii ka horeysay ee ka soo baxsatay xeryahan. waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah cunto xumo, daryeel caafimaad la'aantiis iyo in la mariyo shaqooyin adag iyo daranyo kale. bishii May 2020 aabaha mid ka mid ah dhalinyarada ka soo baxsatay Eritrea oo lagu magacaabo Cali Jaamac Doodi ayaa galka baarista u sheegay in hay'adda NISA ay ku wargelisay in wiilkiisa Cabdisamed oo xilligaasi 18 jir ahaa uu ku dhintay Eritrea intii uu ku jiray tababarka. dhalinyaradan soo baxsatay waxay xaqiijiyeen geerida wiilkaas Cabdisamed waxayna isku raacsan yihiin oo ay ka siman yihiin in dhalinyarada ku dhimatay Eritrea ay ka badan yihiin hal qof. dhalinyarada soo baxsatay waxay ka hadleen shilal kala duwan oo ay sheegeen in dhalinyaradu ay ku dhinteen. dhammaantood waxay sheegeen inuu jiray isku horimaad dhexmaray askarta Soomaalida iyo tababarayaasha Eritrea bishii Sebtembar ee sanadkii hore. maxamed faarax ayaa sharaxaya isku horimaadkaas iyo sidoo ku dhashay. shaqadaas waxay ka bilaabatay dhalinyaro naga horeysay oo 1500 baajiday oo xero kale anaga naga sii horeysa ku jira nagana soo horeysay oo 2019 bishii 8 soo tagay. waxaa dhacday maalintii maalmaha ka mid ah 14 maalintaas oo dhacayso hawshaas ay dhacayso yaan waxaan meel lagu arkay niman Eritreana oo wata garweyno iyo badeelo oo meel qodaya. dhalinyaradii dad ka mid ah waxaa la yiri nimanka Eritreanka dhalinyaradii Soomaalida ah 1700 ka mid ah baa qaar dileen oo dhintay. nimankii weeyna aasayeen Soomaalida halka ku aasayeen meedkoodii
saasaa kacdoonkaani saasuu ku kacay. markaad maqasheen dhalinyaro Soomaaliya ayay laayeen oo la aasaya, maxaad samayseen idinku? seed uga gadoodeen? ma gacmaad ula tagteen? miyaad booqdeen? say ku timid? waan dhagaxuun iyo ula iyaan qaadanay. Eritreankii baan waxaan ku niri hana soo dhexgelinina, hana noo imaanina, dee anagu mana aanu huwaysnayn, hubna gacanta nooguma shibin, tababarna ma rabna waddankeena u baahannahay baan ku niri. Kabacdina ciidankaasaana nagu fasaxay, hawshaasina saasay u dhacday. dhacdadii ay ka dhalatay ee la yiri dhalinyaro Soomaaliya la laayay, markaad sii daba gasheen cid idin sheegtay ma jirtaa inay run ahayd inay been ahayd? iyo dhacdadii markii aan sii daba galnay waxay noqotay meelaan ku tababaran jirnay oo xoogaa noo jidhay oo noo muuqata oo biraha iyo waxaa lagu tababarta ay ku yaaleen, yaa nin Eritreana oo macallimiinta ka mid ahaa isku deldelay. markuu isku deldelay meeshii ninkii midkiisa meesha loogu tagay. bacdina halkaas waxa weeye Eritreankii ayagoo dhan waxa weeye ay ku shamuumeen. hawshaasina saasay ahayd. mid ka mid ah saraakiisha Soomaaliya oo ka warhaya ciidankaasi waxa uu galka baarista u xaqiijiyay inay jirto shaqaaqa ka dhalatay dhimashada macallin ka mid ah macallimiinta Eritrea. shaqaaqadaasi oo uu sheegay inuu ku dhintay askari keliya, hase yeeshee dhalinyarada soo baxsatay waxay tirada dhimashada gaarsiinayaan 7 askari oo Soomaali ah. sarkaalkaasi ka tirsan dowladda Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta. waxaa kale oo galka baarista u sheegay inay gadood sameeyeen ciidankii ugu horreeyay ee la geeyay Eritrea, kuwaasi oo uu sheegay inay la yaab ku noqotay dalka la geeyey iyaga oo filanayay in la geeyo Qatar. waxa uu sarkaalkaas u sheegay galka baarista in ilaa 100 askari oo shaqaaqadaasi mas'uul ka ahayd laga qaado xerada loona wareejiyay xero kale, kadibna ay xaaladdu degtay. mid kale oo ka mid ah dhalinyarada soo baxsatay Soomaaliyana soo gaaray 1 Juulaay waxa uu galka baarista u sheegay inuu yaqaano 3 dhalinyaro ah oo iyaguna u dhintay siyaabo kala duwan, sida mid u dhintay shuban biyood, mid koronto qabsatay iyo mid ku qaraqmay galbiyood isagoo ka baxsanayay askar Eritrean ah oo ceyrsanaysay xilli uu ka soo laabtay deegaan ay u doonteen inay telefoon ka dirsadaan. waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah waxa uu cabsanaya amnigiisa. laakiin mushkiladda siyaasadeed ee ugu weyn ee ka soo baxday ciidanka lagu tababarayo Eritrea ayaa ah eedaha la xiriira inay ka qayb galeen dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. waalidiin ku banaanbaxay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah waxay ku cawdeen inay ka cabsi qabaan in ciidanka loo adeegsaday dagaalka Tigray, waxayna ilaa haatan wadaan baaqiyo ay u dirayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu hor yimaado waalidiinta una sheego waxa ku dhacay wiilashooda. waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdi Nuur oo wiilkiisa loo qaaday Eritrea bishii Oktoobar 2019. ilaa haatanna mar kaliya la soo hadlay waalidkiis. sabab amni dartood aabbahan waxa uu diiday in la sheego magaciisa oo buuxa iyo weliba magaca wiilkiisa. aniga wiilkaygii ilama soo hadlin wax. waalidiintu hadday iswareysatana qof wax la soo hadleen maanaan maqal. marka dawladdana waa u cabanay, waa mudaharaadnay, si kastaan yeelnay, wax waa noo qaban weyday. waxaan tagnay madaxtooyerideeda maalin dhexdaasa gabdha tageen, nalooma jawaabin. lambar 4 baan tagnay oo mudaharaad dabcan xore inaan ku qabsano. waa nala cayshay oo waxaa la yidhi wariyaashii baa la cayshay, waxaa la yidhi waraysi kama qaadi kartaan. annaga dhibaato kale noomaysa geysan. waxay yidhaahdeen wax waraysi ah oo wariye in ka qaadi kara lama arka, wariyaashii bay naga caysheen. lambar 4 saan isaga firfadhinay baan iska soo dareersan. marka niyahow caburintaas iyo dhibaatadaasaa jirta. dawladdu dawlad hadlaysa ma aha, dawlad dadkii saasay ku maqan yihiin ma aha. cid kasta waa u cabanay. ayaan la weyd mar baan faraxno, waxaa la yidhi ra-iisul wasaaraha guddi saaray. guddigaasna meel uu ku dambeeyey ma naqaan. warkiisa in la sheegay bes baa noogu dambeysay. inuu wax qabtay inuusan wax qaban midna ma hayno weli caddayn. maxay idin caburinayaan? wallaahi niyow arrinteeda wiilasha dhalinyaradaas arrinteeda mugdi bay ku jirtaa weyn. dadka siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan mugdi bay uga jirtaa. meeshaana waxaa kumana jiraan liiska ka mid ma ahan. odawaa baarlamaanka weydiiyey, wuxuu yidhi annaga ciidan Eritrea naga jiraa ma jiro hadda ka hor. marka niyow annaga arrintaa mugdi baa ku jira. waxay tahana ma naqaan. ilmaha liiska dawladda kuma jiraan oo hoggaanka tababarada ka mid ma ahan. si wasaaradda arrimaha guduhu ma oga, mid dabadeed ma oga. marka niyow culaabtaasaa jirta. ilmaha iyaga mugdi badan baa ku jira. ilaahay baan tala saaranay, wax kale oo noo maqan ma jiraan. maxamed faarax oo ka mid ah askartii ugu dambeysay ee ka soo goosatay xeryaha tababarka Eritrea ayaan weydiiyey in ciidan ka mid ah kuwa Soomaalida ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee Itoobiya. wallaahi
wallahi arintaasi niyow anagu de xerooyin baan joognay anagu 900 baan ahayn kuwa naga horeeyay 1500 bay ahaayeen kuwa kale 2700 bay ahaayeen oo iyaguna bishii 6 2020 ciidankaas noogu dambeeyay Soomaaliya laga keeno 2020 bishii 6 baa la keenay kuwaasna de xerooyin baa ku kala jirnay telefoon iyo isgaarsiinna si lagu helaa waaba adkayda wax xogna la iskama hayn iyo magarat marka inay galaan waa macquul sababtoo ah xog la iskama hayn maadaama xerooyin kala inta aad ka warhayso ciidan marka Tigray loo qaaday miyaa jiro Soomaaliya dagaal ka qayb galay niyow anigu inta aan ka warqabo may 900 baa laakiin anigu ka warhayaa ciidamadaas kale war uma hayo laakiin 900 inna lagama qaadin ilaa haatan galka baaristu ma hayo cadaymo qeexan oo muujinaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababariyay Eritrea ay ka qayb galeen dagaalka Tigray hase yeeshee dhalinyarada ka soo baxsatay Eritrea ee u la hadlay galka baaristu waxay dhamaantood isku raaceen inaysan jirin ciidamo ka tagay xeryahooda oo ka qayb galay dagaalka Tigray dhalinyarada u la hadlay galka baaristu waxay ka kala yimaadeen 2 xero oo ka mid ah xeryaha lagu tababaro ciidanka Soomaalida ee ku sugan Eritrea labadaasi xerana waxa la kala geeyay bilihii Febraayo iyo Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay sidoo kale dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland iyaguna waxay sheegeen inay qaarkood ka yimaadeen xeradii ugu horeysay ee lagu bilaabay tababarka ciidanka Soomaalida dhalinyaradaasi oo markii ugu horeysay loo qaaday Eritrea 19 bishii August 2019 mid ka mid ah dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland isaguna waxa uu sheegay inuusan ka warqabin ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray kasoko haddaba xogta ay bixiyeen dhalinyaradan soo baxsatay waxaan macluumaad buuxa laga haynin tirada askarta Soomaalida ah ee loo qaaday Eritrea dhalinyarada ilaa haatan soo baxsatay waxay isku raaceen in 3 xero ee ay ka kala yimaadeen ay ku kala jireen 1500 900 iyo 2767 tirooyinkaasi oo marka la isku geeyo dhan 5167 askari waxaase su'aalaha muhiimka ay ka taagan yihiin ciidanku ma waxay ku koobnaayeen 3 xero oo kaliya ma waxaa jira xero afraad ama mid shanaad oo aysan ka warhaynin xubnaha ciidanka ee ilaa haatan soo baxsaday warbixin uu qoray madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan Eritrea Maxamed Cabdisalaam Baabikar bishii hore waxa uu ku sheegay inuu helo xog iyo warar sheegaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea ay Tigray u raaceen ciidamada Eritrea laguna arkay inay joogeen nawaaxiga magaalada Aksum ee gobolka Tigray hase yeeshee warbixintaasi qaramada midoobay ma aysan soo bandhigin cadaymo hufan oo muujinaya joogitaanka ciidamada Soomaalida ee gobolka Tigray galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka toddobaadkan si uu uga helo xogta ku saabsan in ciidamo Soomaali ah ay tageen gobolka Tigray waxaana ka helay jawaab kooban oo u qorayd sidan waan ka warqabnaa waana eegaynaa wararka sheegaya in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Tigray sida uu sheegay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay dawladda Soomaaliya dhinaceeda waxay xilliyo kala duwan beenisay inay jiraan ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray xiriirro cusub oo galka baaristu uu la sameeyay taliyaha ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya ee Eritrea midkoodna nooma suuro galin inaan ku qancino inay waraysi ka bixiyaan arrinta ciidamadan xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waa wasiirkii hore amniga Soomaaliya waxa uu falanqaynayay wararka ku saabsan ciidanka Soomaalida ee lagu tababarayay Eritrea iyo eedaha ku saabsan inay ka qayb galeen dagaalka Tigray waxaa loo baahan yahay in xog rasmi ah la haayo si loo yiraahdo askartii wiilashii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday Eritrea waxay ka qayb galeen dagaalkii Tigray marka waxaa loo baahan yahay xog rasmi ah iyo cadeymo loo baahan yahay runtii ma hayno laakiin waxaa jira cadeymo badan oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen mid kamid ah waxa weeye reportkii UN-ka human rights ku saabsan oo ay soo saareen bishii hore oo tilmaamayay reportka lagu sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamadii Soomaalida ahaa ee Eritrea lagu tababaray inay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray sidaas si lamida su'aashii Ilhaan Cumar oo Congress-ka ka tirsan ay weydiisay ee ahayd ciidamada ma ka dagaalameen ciidamo oo uu yiri yani xog waa jirtaa tilmaamaysa inay ka dagaalameen laakiin definitive answer ama jawaab sax ah ma bixin karo waqtigan uu yiri marka labadaas fiiriso iyo midda saddexaad oo ah aamusnaanta dawladda ay ka aamusan tahay waalidiintii oo qaylinayo oo hadlayo oo leh yani waxaan rabnaa inaan hadal ayna siiyaan carruurtayna meesha ay ku sugan yihiin inay dhinteen inay nool yihiin marka aa fiiriso
iyo midda afraad oo ah guddigii uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay inay soo baaraan arrinta Eritrea dhalinyaradii loo qaaday iyo inay dagaalkii Tigrayga ay ka qayb qaateen oo aan wax jawaaba laga haynin muddo 2 bilood ah. intaas markaa fiiriso waxay tilmaamaysaa aniga aan isleeyahay dabcan xaqiiqda iyo evidencega iyo factska gadaal ay kasoo bixi doonaan, laakiin waxay tilmaamayaan in ay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo meeshaas Tigray la geeyey inkastoo aanan haynin haddana wax cadcad oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen dagaalkaas. warar uu galka baaristu ka helay 2 sargaal oo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo qariya magacooda sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta waxay sheegayaan in mas'uuliyiinta dowladdu ay go'aansadeen in la soo daadgureeyo ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea. mid ka mid ah saraakiishu waxa uu sheegay in la filan karo in ciidankaasi ay ku soo laabtaan Soomaaliya toddobaadyo gudahood. wararka uu galka baaristu ka helay ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidankaasi loo qayday inay ka howlgalaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. mas-uulka dowladda Soomaaliya ugu qaabilsan tababarka ciidankaas oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamuud Xaaji Maxamed iyo 2 sargaal oo la sheegay inay ka socdaan Eritrea ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u qiimeeyaan howlgelinta ciidanka iyo dejintooda. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.